maanta waxaan u malaynayaa waxay inoo tahay farxad weyn 20kii November waxay inoo ahayd murugadii ugu weyneyd ee wasaaradda ku dhacday qof kastoo inaga mid qaarba lugeeyay qaarba orday qaarba khalkhalay yani anigu meel baa fadhiyo timir baan cunay marka sida markuu aanu qaaday buu ninka Cabdiqani soo galo masuu guuri Cabdicasiis Afrika dhintay tii xabad way ga dhacday marka saasaan u hayay way ga dhacday yani wax filan waayo kale naxdin sharmaarkana waa la qaaday waa nislaaway orodkii anigoo dhakhtarkii jooga baan sarkay oo ku dhex jira 500 qof aan midna ka garanay dhex ordaya ayuu baan sarkay waxay ahayd wax aan qofka banaadamka ay markaas suuras sababtay markaas baa saacad ka hor ma baan kala tagnay inna lillahi ma akhad wa lahu ma aada ilaahay isaga marka horena dadka bixiya iyo ubadka marka dambana isaga qaata oo dunida cidana ku waari mayso laakiin axdintu waxa weeye qofka nool ee ku naxaysaa inta ka dibna waxaan ugu tagnay qolka saalada ninka quruxda badan oo hadii xaalkiisa adarka lahaydeen si kala noqon lahaydeen yani jirkiisa meel maqaar ku yaalaaba aanu jirin haday gacmaha tahay haday lugaha tahay haday halkan caloosha wax ka galeen tahay haday qoorta tahay meel kasta dhiig baxayo oo sida uu sheegayo agaasima Cabdiraxiim ad warwarayso dadaal weyn bay ahayd runtii in la qaado sababta waxa ugu weyn ee laga baqayo marka khatarta ah waxa infection qof maqaarkii oo dhami ka tagay oo jirkiisa cad oo banaanka yaalo dhakhtar waliba wuxuu lahaa infection laga celin karo inaguna maleeyin oo waqtan xaaladda qolal aan cidi gali karin markuu Turkiga tagay waxa laga yaabaa 2 usbuuc inaan cidi u galin binaadan u galin qol ku xidhnaa laakiin inaga dadka booqashadaaba marka horeba infection ka keenaysa markay 100 qof soo gasho qolkii qofka ku jiray 100ka qof uu la socotaa infection ku khasab dan looma galo qofka sidaas oo isolation baa la galiyaa qof kofar lahum baa galo la qafilay marka qofkana markuu infection kaasi qaado wax laga qaban karaa ma jiro kaliya istaagaya wadnaha istaagaya beerka istaagaya multi organ failures ka waxa la yiraahdaa khatar markuu infection ku jirka ku dhamaado xaaladda argagax xalay waxaan u mahad celinayaa runtii nafur sameeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble nala naf qaybsaday nala ooyay nala gurmaday nala tacsiyay awood dhaqaale iyo diyaaradda la soo ijaaray waxa ka weynaa inuu nala qeyrooday oo uu nala dareemayay xanuunka waxa uu tagay oo maalintan galabtii aan u tagay ra'iisul wasaaraha la socday afaragaasime waxa lagu yiri furayaashii wasaaradda waa kuwaas meesha tarabtagay laana haddii maanta sharmaarka halka ku dhinto qof dambe oo shaqaynaya wasaaradda ma jiro yaa shaqaynaya waa tusaale qarashkeedu habato waqtiga ha adkaado hawshu ha badato laakiin waa lagu guuleystay waxa kale oo runtii shaqo weyn qabtay safiirkeena inoo jooga Turkiga ambassador Jaamac Aydid oo la'aantii aanay waqtiga iyo hawshu aanay waxba dhici kareen isaga diyaaradda soo ijaaray isaga hawsha tagay isaga airportka yimi isaga dhakhtarka soo buukan garay ambalaaska isaga diyaariyay isaga iyo dhakhaatiirtii kale ee la socotay iyo tiimkii u joogay wasaaradda warfaafinta dalka Turkiga intaas oo dhami markay iskaashadaan waxay sabab u yihiin badbaadadii sharmaarka badbaaday waxay ahayd waxaan afka qalaad miracle lagu yiraahdo mucjiso in halka laga soo noqdo waxaan sameeyay maqal jirin dalka meel fog baa laga keenay ninkan meel fog baa laga keenay bil macna kalima meel fog baa laga keenay wuxuu ka soo noqday meel aad u fog dhakhaatiirtu markii la geeyay Istanbul
way rajadoodu aad buu yaray way yaabsanaayeen yani inuu sababo nololba ku soo gudbo muqdisho ilaa istanbul diyaaradda flightка ku soo gaadhaaba mucjiso ahayd laakiin alxamdulilah ilaahay baa mahadle waa lagu guulaystay daaweyn fiicanna wuu helay badbaado fiicanna wuu helay waana la berber taagnaa ehelkiisuna mar quraba kama dhaqaaqinba oo haddaan ehelki walaalo iyo adeero iyo dadku aanay jooginna waxba inagu maynaan qaban karnayn iyagana waa u mahad celinayaa axmed iyo tiimkiisii intaa kadib dalkan waa ogtihiin xaaladiisu cadowgiisu waa taagan yahay waxaa ugu dambeysay usbuucan oo 50 qof ay nagaga dhinteen beledweyne dagaalkaas waa dagaal duulaan ku ah jiritaanka qarannimada iyo isirka ummadda Soomaaliyeed buu khatar ku yahay dagaalkaasi adkaysi buu u baahan yahay dhabar adeeg buu u baahan yahay xalay baan qorayay waxaan lahaa way ummad kasta oo dunida ka mid way soo martay dhibaatadan ummad kasta oo dunida ka mid mar xaaladdu sideenan oo kale ay ku adkayd oo dadkoodu dhiig baxaya way soo martay laakiin ummad walba waxa uga dambeysay guul iyo nabad iyo barwaaqo adkaysi baa laynaga rabaa midnimo laynaga rabaa cadowgaynu meel uga soo wada jeesanaa laynaga rabaa inaynaan isdhiibin baa laynaga rabaa inaynu adkaysanaa laynaga rabaa in aynu ogaano in shacabka Soomaaliyeed dhammaan maayaan habeen kasta waxa dhasha 10,000 qof oo caruur Soomaaliyeed baa dhashay markay siraahda dhamee isaga dhamaanaya tii madaxweyne hore Xasan Sheekh baan u maleynayaa wuxuu yiri xaqinka dhamaanaya dhulku dhamaan maayo shacabka Soomaaliyeed waa dhulkii cadowguna waa xaqinkii dhulka haddaad istiraado hal xabo xaqina ku dhameemay ku dhamaanayo dhamaan maayo habeen kasta 10,000 caruur ah dhashay marka ma dhamaanayaan way jirayaan waana guuleysanayaan insha Allah taala waxaynu arki doonaa dalkeena barwaaqo nabad ah horumar ah isle dhibaatadana laga gudbo waxa wadamada dunida ugu weyn ee Mareykanka civil war-koodii malaayiin iyo malaayiin la hadda ka sheekeeyeen inta kaga dhimatay marba caasimadda Washington dagaal ku dhexdeeda ka socon jiray xilligii Lincoln dhexdeeda American Civil War waa caan Paris taa aragtaan marbu dagaal ku dhexdeeda ka socday 45 milyan baa dagaalkii labaad ku dhintay Berlin marbay gabigeedaba la baabi'iyay ay doonsanay bari dhow waxba 70 sano ka hor marka ummad kasto adduunka ah Baghdad ay ogeeyeen sida loo galay maanta quruxdeeda hadda aragtaan waa yaabaysaan marka ummad kasta way soo martaa tajribada laakiin way guuleysatay laakiin guushu waxay u tahay ummad midaysan isku duuban samirtay dhabar adagtay cadowgana meel uga soo wada jeesatay waxaan ku faraxsanahay inaan soo dhaweyno agaasima Sharmaarka Maxamed Warsame waxay muujinaysaa hal adayga iyo geesinimada dhalinyarada Soomaaliyeed nolol looguma talagelin maantana wuxuu joogaa shaqadiisa halka waxay fadhiya Cabdulqaadir Maxamuud Cadde oo isaga iyo qoyskiisa iyo qof walba dhibaatada soo gaaray haddana isdhiibi waayo ilaa haddana shaqadii iyo dagaalkii ku jira waxa ay muuqda caasimadda Muqdisho oo loogu talagalay inaan lagu noolaan oo maanta magaalo ka qurux badan ee aanay ku oolin geeska siday u dhismayso iyo siday u socoto iyo horumarka dhaqaalaheeda intaasiba waxay muujinayaan adkaysiga shacabka Soomaaliyeed adkaysiga dhalinyarada adkaysiga ummadan waanaynu guuleysanaynaa Sharmaarka ku soo dhawo wasaaradda waa laga jecel yahay waa lagu murugeysnaa Cabdicasiis Helimayno inoo soo noqon maayo wuxuu ahaa qof marle arag ah oo aan ifka lagu arag laakiin inta dhamaanteen sida ay sheegtay agaasime nagaad dhamaanteen wada Cabdicasiis beenuna shaqadu waa shaqadaadii halkaaga wad ka sii wadaysa adigoo ka firfircoon oo ka karti badan oo ka geesisan laana dabka marka hore intaan la gubin baa laga cabsadaa laakiin hadduu bahalku ku taabto marka dambe marka waxaan maleynayaa imika inaad xataa waxaan soo arkay baad oranaysaa kam shufnaa maraakiib macdan la warin marka meelaha meesadaad aragto iyo dad message loo soo dirayay waxa anaga soo aragno wax weyn ma inaad oran doonto oo waa runtii qofka tajribada soo maray uu ka geesisay ka kale waa dhamaanteen waa guuleysanayna